Dr. Cali Tamiim Al-Khawaari dhakhtarka sida gaarka ugu xilsaarnaa dabiibka dhaawaca gaaray dhibane Cabdikariin lana tacaalaya xaaladiisa ayaa garsoorka ugu warbixiyey xaaladda bukaankiisa iyo marxaladii uu soo maray dhaawaca gaaray. Sayyid Al-Qadi, my name is Dr. Ali Tamim. I'm working Kalkal, Afardarjeen. I'm a neurosurgeon. I remember all the history of this patient from the beginning until now. But Tariq, ممكن I don't remember correctly. So Tariq is already written here. Okay, Sayyid Al-Qadi. The patient, Abdul Karim, his name Abdul Karim, he came our hospital. That time he was coma. After examination, we saw there is, after shaving, he was more bleeding from his head. We make shaving to the hair. After that, we saw two hole in his head. bukaanka markii naloo keenayay taariikhdii iyo aniga xasuusto waa 16 bisha Abriil maalin Arbaco ah subax 2 saac iyo rubi subaxnimo la keenay bukaanka asigoo xaalad kooma ku jiro oo madaxa laga hool ay ku taalo oo maxallaha waxaan sameynay marka si aan u aragno dhiig badan ka socdo madaxa si aan u aragno dhaawaca heerka uu gaarsiisan yahay waxa uu sameeyay waxa la yiraahdo shaving tinta in laga helo oo la meeshii la faaro si loo arko dhaawaca xaalka uu gaarsiisan yahay. I'm speaking about something accurate because the history is so important for Mahkama. That time he was not full coma, semi-coma, we can say semi-coma. He's not unconscious, unoriented, fighting so much. Directly we sent him to do CT scan, brain CT scan. After he came from brain CT scan, we saw the result. The result was there is 2 holes in the skull, in the bone, fracture bone. One entrance and another exit. That time we suspected there is a bullet. At the beginning we don't know what's the history of this patient. He came with unknown history. They found him on the road. marka bukaanka xaaladiisa oo ku sugnayd koomo anaga waxa sameeynay markii tintii wixii ka xiirnay dhaawacii aan aragnay dhiig joojin aan sameeynay aan macnaha bantaajo waxa la dhahaa bandage la dhahaa waxa ugu duubna madaxa si dhiiga aan yareyno dhiigaas ka socday waxa u dirnay scan-kii la soo saaray bukaanka scan-kii la soo celiyay jawaabta scan-kii waxa ku aragnay in laba meel oo dhaawac badda ay lafta maskaxda ay jabisay dhinacna ay ka gashay dhinacna ay ka baxday. Because the history at the beginning, it was not clear for us. Also, to the person which he's brought him, they told us they found him with someone beat him. Beat by what we don't know.